Bismillaahi Raxmaani Raxiim. Kusoo dhawaada channelkeena Somali News aynu kusoo bandhigno alaab wixii dadka cajabiyo. Maanta waxaynu ka hadlaynaa ama aynu soo bandhigaynaa sheeko la yiraahdo dhaxal wareeg. Si wanaagsan u dhageyso. Bari baa waxaa jiray nin la oran jiray oo jaamac oo ku noolaa meel miyi ah. oo jaamac waxaa la noolaa wiil uu dhalay oo la oran jiray Raage iyo mid uu adeer u yahay oo la oran jiray Biixi. Odayga waxa uu lahaa xoolo badan waxaana u dhaqi jiray wiilka uu adeerka u yahay. Biixi waxaa intaa u dheereed adeerkii oo jaamac oo uu si gaar ah u xanaaneyn jiray una daryeeli jiray. Raage waxa uu ahaa wiil howl neceb oo aan ka warqabin xoolaha aabihii. Waxa uu maalin oo dhan ku mashquulsanaan jiray sheeko iyo jar ciyaareed. oo jaamac markii uu la yaabay mas'uuliyad darrada wiilkiisa, Raage inta uu u yeeray canaantay oo uu ku yiri, "Aabbo, maxaa kugu wacan shaqo nacaybka iyo xoolo dayacnimada? Sow ima aragtid in aan ahay qof waayeel ah oo aan waxba qaban karin? Sow ima ogid in aan xoogaaga iyo waxqabadkaadaba aan u baahanahay? Maanta ma caqli iyo xilkaaga ku gudan waydo? Yaa kuu dhiman? Nacasnimada iska daa oo sidan isku dhaan." Raage markii uu aabihii hadalka dhameeyay, isaga oo xanaaqsan oo gafuurka taagaya, ayaa iridda uu ka baxay. Waanadii iyo taladii aabihii ma uusan dhageysanin. Halkaa ayaa uu dhaqankiisii ahaa meel jooga iyo jar ciyaaridda iska sii watay. Raage markii uu barbaar noqday ee uu weynaaday ayaa waxa uu doonay inuu guursado. Wuxuu u tagay aabihii oo uu ku yiri, "Aabbo, waxa aan rabaa in aad gabar ii guuriso, xoolo yarad ahna aad iga bixiso." oo jaamac oo la yaaban caqli xumada wiilkiisa ayaa ka diiday inuu gabadh u dhiso, yaradna uu ka bixiyo. Isaga oo careysan ayaa uu ku yiri, "Xoolahan aad doonayso in aad gabadh kuugu guuriyo ma aha xoolo aad adigu dhaqday oo aad ku howl daashay. Waa kuwii aad diiday in aad dhaqdo ee maanta xaq iguma lihid inaad guri kuu dhiso, xoolahana yarad kaaga bixiyo." Raage talo ayaa ku caddaatay. Markii uu xoogaa fikiray, waxa uu go'aan ku gaaray in uu u tago adeeradii. Waxa uu doonayay inay aabihii kala hadlaan kuna qanciyaan in uu siiyo xoolo uu gabadh uga geed fadhiisto. Adeeradii arrintii Raage waa ay ka tashadeen. Waxa ayna garan waayeen weji ay odayga la hortagaan, waayo waxa ay ogaayeen Raage xoolaha seegnimadiisa iyo karti darradiisa. Muddo dheer kadib, oo jaamac markii uu gaboobay ayaa uu go'aansaday in uu dardaarmo. Waxa uu isugu yeeray dadkii xigtadiisa ahaa, saaxiibadii iyo adeeradii. Waxa uu ku yiri, "Waxa aan maanta idinku yeeray in aan idin sheego in aan xoolahaygii 3 qaybood 2 qayb ama laba ahaan aan siiyay wiilka aan adeerka u ahay ee Biixi. Qaybta soo hartayna waxaa wada leh wiilkayga Raage iyo cidda kale ee dhaxalkayga soo gasho."
Dadkii oo jaamac isugu yeeray markii ay maqleen go'aankan yaabka leh ee uu odaygu ku dhawaaqay ayaa ay weydiiyeen oo ay ku yiraahdeen, "Ow jaamacow, xoolaha wiilkaaga ayaa dhaxal u lahaaye maxaad wiilka aad adeerka u tahay intoodii badneed u siisay?" Ow jaamac inta uu xoogaa aamusay ayaa uu dadkii ugu jawaabay, "Way habbooneed in aan maanta su'aashan i weydiisaan. Wiilkan aan adeerka u ahay ee bixi waa uu mutaystay in aan dhaxalkayga inta ugu badan siiyo. Idinkuba waxa aad markhaati ka ahaydeen sidii wanaagsaneyd ee aniga iyo xoolahaygaba uu noo daryeeli jiray." Waxa uu intaa ku daray oo uu yidhi, "Nin ku xiga waa taqaan, kan ku roonse ma taqaanid. Wiilkan aan adeerka u ahay wuu iga roonaa wiilkayga, sidaas awgeed ayaan xoolahayga ugu badiyay." Dadkii meesha isugu yimid waxa ay garwaaqsadeen hadalkii Ow jaamac. Waxa ay ku yiraahdeen, "Allailehe Ow jaamacow, maanta cadaalad ayaad samaysay. Waxaad ku hadashay waa run. Bixina xaq buu u leeyahay in aad xoolahaada dhaxalka u badiso. Ow jaamac waa uu dhintay, dhaxalkii xoolihiisana sidii uu ku dardaarmay ayaa loo qaybiyay. Raagi waxa uu ka qoomameeyay sida uu u dayacay mas'uuliyaddii saarneyd dhaqaaleynta iyo weliba xanaaneynta aabihii. Waxa uu fahmay in uu go'aankii aabihii gaaray cadaalad darro ahayne uu ahaa waxa uu isagu mutaystay." Sheekadan maxaa laga baran karaa? In qofka lagu abaalmariyo samafalka iyo dadaalka uu sameeyo ee aan lagu qiimeyn xigaalnimadiisa. Haddii aad sheekadan dhageysatay, sheekooyinka